وأقبلنا جدك وحنا كاني شركه ونا كاني أرميه ونا كاني وأقبلنا وأنا إلهنا بمحدث كلا وأنا أمهات علينا وعن كباقينا بيلها كلا أو قل مدق أردن إن الشركة ساس وكلا وأقبلان إن يسوه جان سمان إن الدب هالشيء كقيب قلان إن الشركة كقيب قلان أرنت أصودن محوها إن كل جود ساس وشرفان جدك يوم محوها يتدك إسلامك وصودي بعد تظن وصودي ما تادي إن أمهات عليان أرميه هذا أقبلان كنا سود ويان بانكو باقينا إياهم aniga oo xildhibaan Cabdinuur Sheekh Ismaaciil Aadan gudiga dib u heshiisiinta galmudug oo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdi Maxamed Sabriye ayaa noogu yimid degmada Huurshe oo uu hogaaminayo gudoomiyaha gudiga Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi Cabdiraxmaan Baadiyow waa soo dhaweynay waa qaabilnay waa wada hadalnay waa heshiinay waxa weeye waxaana insha Allah aan aqbalnay in aan gogasha dib u heshiisiinta galmudug looga hadlayo dhuusamareeb aan tagno hadii Ilaahay idmo beelaha galmudug daga dhamaantoodna waxaan ugu baaqaynaa gogashaas lagu wada hadlayo oo lagu heshiinayo oo dawladda galmudug hadii Allah idmo lagu dhisanayo inaan ka soo wada qayb galno iskugu nimaadno annaguna waa aqbalnay gogasha dhuusamareeb ka fisan